maanta wixii laga oran lahaa waa la yiri wax dheeraado cusub ku dari maayo marka la soo dhumay hadalkeena dhiibana malaha inaan soo kooban xukun baa laga rabaa maanta waa maalintii ciidanka waa maalin qiimane aniga maanta waxaa ii sharafa ama xusuus wanaagsan ah maalintii ciidanka la aasaasayna inaan xirada soo deerka lahayn oo geed hoosteeda mararkii qaar u baa ka nool aan ugu khudbadeynayay iyo ciidanku arraday yahay wasiirku waa lugeynayo ragii halkaan joogna waxba ka nool maanta halkaynu marayno waa wax ilaahay lagu mahadiyo lagu farxaa ilaahayna waxaanu ka rajeynayaa inuu inoo sii socdo horumarka hay'adaha dawladda iyo qaranka oo dhan hawsha booliisku qabto waa laga hadlay qodobadii laga hadlay waxaa laga tegay qodobaa lagu darinoo nin walba haddaba wuxuu yidhi booliisku nabadgelyada loo ilaaliyaa waynu ku seexanaa gaarkay hayaan way soo jeedaan shaqo kale hayaan oo ah xuquuqda inay ilaaliya qofna inaanu qof ka xadgudbin xuquuqda dastuurku qofka siiyey muwaadinka ayay booliisku ilaaliyaan oo toogu weyna dadkuna waxay degaan oo nabadu timaada markuu qofku xuquuqdiisa helo taana waa ku darayaa horumarkooda iyo 5 sano dambe waxaa ka qayb ah waxyaalaha booliiska kor u qaaday inamadii ka soo baxay shaqadii qaran oo ciidamada halka ka galeenba kor u qaaday oo ka dhex muuqday iyo dawladda meesha galay booliiska intaas ku dhaafay iyo xafladda intay ku ekayd qodobka labaad waa laga hadlo waa doorashada qof walba waxa saaran nabadgelyadeeda bariyaha waxa bilaabay in sawirada ay leeyihiin xisbiyada qaranka iyo ururaduba in dadka qaarkii jeexjeexaan farafareeya maalin dhaweyto masalaha waxaa ka dhacday sawir uu leeyahay xisbiga wadani ayaa la dardalooliyey booliisku way soo qabteen raggii geystay 2 qof bay ahaayeen min sanad iyo dheeraad baa lagu xukumay degdeg xalay magaalada Hargeysa waxaa ka dhacday in la dardalooliyo oo jeexjeexay sawirro ay leeyihiin xisbiga wadani iyo ururka ka booliiska waxaa ka codsanaya qof kasta oo waxyaalaha ku kaca ama xisbi qaran waxyeela ama fitna abuur iyo waxtuura in degdeg loo soo qabto sharciga la mariyo waa taqula ee xaqu ku imanaya waayo dadka habeenkii wax jeexjeexaya ama wax turturaya su'aal baa la isweydiinaya ma Soomaaliland darbaa ma qof waalan baa wuxuu yahayba waa halka ay ka bilaabato dhibaatada xisbiyada waxa faraya dhammaantood iyo ururada tartamaya inay wacyi geliyaan oo ay ka adkaadaan taageerayaashooda waayo waqti dadka si aad xasaasiyad loo kiciyay oo social media laga kiciyay oo dadka xisbiyada ka hadla qaar badan ka kiciyeen oo dadka ayaa dhalinyarada iyo dadka caadifiinta halkaa ay marayso xasaasiyadooda waxaa kaloo ku darayaa qof wal oo Soomaaliland maanta oo codaynaya inuu isweydiiyo doorashadu muxuu ka doonayaa ma wuxuu ka doonayaa qofku jecel yahay inuu noqdo madaxweyne oo la doorto ama xisbi ma wuxuu ka eegayaa si qabaliya oo u leeyahay waxa kala xidhiidh wala qoladayda soo baxdo ma wuxuu ka eegayaa in ay noqoto doorashadu cida la doortaa oo xisbi madaxweyne ma wuxuu ka fikirayaa qofkan warqada guriga in ay noqoto mid hore loogu sii wadaayo qarannimada Soomaaliland dhinac walba difaaceeda nabadgelyadeeda اعتراف دور كذا اسكو هاي تدل كذا خدي أريد ورشة الصار وفق أروق فكرين وخسارة عدكيس وايو تورشة الحول عيسى هور مريتا قرن لمدة السومال محاشتي مر الله دونيا وحنا دونيا إن مر والبر ليس حسابيه الكير مرينا حين وحنا وقرنا تثرد ورشة أي هورنا وقاط وحنا بنفريا السومال عدك بحياة إلى تاك فكران عدكونا نبت قليل كلها حداد نبت قليل جالسين ويد ورشة أو تقص كاربطون خسارة كنت السومال تاسوا يقدر دارا
cid kasta oo codaynaysa dadka tartamaya ama ruuxaadeen ama madaxweynaha waajib baa saaran haddii aanad aragtida Somaliland wax ku eegin marka hore oo aanad tusaale af iyo adin iyo fikir Somaliland dhaba oo Somaliland waxay doonaysaa u socdaan lahayn khasaarada wadda gelinaysaa ugu waayo ummadda inta leeg waxaad ku hogaaminaysaa waxa koow oo wadeeqa oo cod kugu jira in la ilaaliyo qaranimada Soomaaliya oo ku dhisatay dhiig iyo naf iyo waqti aan cidla qiyaas karin marka taa wixii ka hooseeya qofka ka fikiro khasaarada aad dalka u keenaysa waxaan ka codsanayaa intaa uu adkaysto meel kasta ay joogaanba mar labaad hay'adaha amniga waxaan ka codsanayaa oo farayaa xalay ciddii wax samaysay ee bahalaha taabatay inay soo qabtaan iyo kuwa meel kasta ay joogaan dhaqaajiya inay iska hor keenaan dadka tartamaya ilaahay waxaa kala jeedaya inay doorashada ugu dhacdo si nabada waxaan ilaahay kala jeedaya inay horumar iyo wanaag iyo jacayl inoo soo kordhiso ilaahay waxaan ka baryayaa inuu horumar Somaliland ugu sii horaado oo horumariyo oo aanay doorashadaasi xaraf iyo qas iyo wax Somaliland dib celiya aanay keenin cadow badan baan leedahay horumarkeena waa la neceb yahay cadow uu badan yahay Somaliland cadowga in dhahooda dhaan ku eegto iyadoo ay sakoyaa iska eegto wassalaamu calaykum wa rahmatullahi